wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland maamulka gobolka Togdheer degmada Buroa iyo mas'uuliyiinta Dallada NAFIS network ayaa magaalada Buroa kaga qayb galay munaasabad ballaaran oo hanaankeeda dhicitaan si weyn loo soo agaasimay oo loo qabtay malinta Danwadaag oo ay ka qayb galaan ururada Danwadaag dalladaha iyo midowga dalladaha waxa soo qaban qaabiyay Dallada NAFIS network oo si weyn uga shaqeysa arimaha horumarinta haweenka dalka iyo midowga dalladaha ee qaran mashruuca Danwadaag ayaa ah mid najaxay guuleystay oo bulshada lagu abaabulay in intii isku deegaanihiba ay mideeyaan cududooda si loo hormariyo dhaqaalahooda gudoomiyaha Dallada NAFIS network Somaliland Khadra Umar Cabd agaasimaha NAFIS Cabdiraxmaan Cismaan Gaas iyo Khalid Sacad oo ah madaxa mashruuca ayaa ka waramay muhiimadda Danwadaag waayo dalladaha laftigooda sidoo kale waxay dhaqaale kabsiiyaan midowga dalladahana inta badan waxa sameeysta 8 urur ugu yaraan laakiin imika Togdheer tusaale ahaan waxaanu haysanaa 30 dalladood oo ku midoobay xubnaha ku midoobay ay tiradoodu tahay 9 ku dhoohooyo markaanu duruufta Somaliland eegno markaanu dadkeena eegnay markaanu ogaanay in dadkeena danyarta ay ka soo horeyso hadaad hay'ad ba sheegato maxaad noo sidaa inaanu ku niraahno anagoo shilin idin siinahayn anagoo waxba idin haynin ayaanu haddana idin tusaynaa inaad adduunyada haysataan dhaqaalana haysataan noloshiina gacantiina ku bedeli kartaan waxaan farxadda la qaybsaday kumaankum haween ah oo reer Togdheer ah oo reer Buroa ah oo Buroa iyo hareeraheeda runtii anigu maalintii waxaan ahaa qofkii u horeeyay ee yiri hal qof hadduu soo hariyo qofkaas aan ahaan ka bax fakhriga oo isku tashaa la yiraahdaa marka waa inaad hoosta ka xariiqdaan maxaynu fakhriga kaga baxaynaa marka maxaanaynu isugu tashanaynaa waxaynu isugu tashanaynaa waxaynu maanta qabsanay oo aynu sii ballaalino hawsha aynu maanta wadno oo aynu sii wadno inagoo aan gacan shisheeye meelo kala toona waxba ka sugin wasiirada wasaaradaha shaqagelinta arimaha bulshada cadaaladda dastuurka barasabka gobolka Togdheer iyo maayirka Buroa ayaa dhammaantood ka marxaati kacay guulaha uu haweenka gaarsiiyay mashruuca Danwadaag iyagoo u mahad celiyay Dallada NAFIS maalin walba xabad kaluuna inanka siiso ama inanta siiso waxa ka qurux badan inaad barto sidoo inanka laftiisu ukalumaysan lahaa in soddon haweena COVID-19 kii caalamka ma saameeyay in halkan saaka dhaqaale lagu guddoonsiin doono waa horumar gudoomiyaha NAFIS oo runtii si mug iyo miisaan leh aan ugu mahad celinayo guud ahaanba halabuurka iyo haladayga ay jamhuuriyadda Somaliland ka wado iyada iyo howlwadeenadeedu waa ilaahay mahadii haddii mashruuca quruxda badan aynu halkan ku daafuray aanun caddaynaya inuu yahay mashruucii ugu faa'iidada badnaa ama kuwa ugu faa'iidada badan uu ka mid yahay arimaha cajaa'ibta leh oo mashruucan ku duugan waxa weeye kow waxaynu ka baranaynaa ama uu ina barayaa inaynu inagu wax qabsan karo marka labaad wuxuu ina tusayaa awooddeena Absaaq Farax Abdullaahi TV qaranka Somaliland Buroa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees استعمال شبكة ugu ballaaran geyga Somaliland